aad bay u kooban tahay oo dabeetana marka lagu dul socdo laftiga labada gaftiru bay ka xidhan tahay oo maaragtay inteeda kale saas ay isaga luulataa moogti biyuhuna wadiguna wuu hoos maraya liiqliiqata leena waa caan waxaan soo tusaynaa bundadu ima cusbo maanta beled weyne iguma horrayso dhowr gooroo hore ayaan waxaan okay hadaba iskuulka secondary cusub ee laga dhisay wadiga dhinaciisa kale ila keenan oo halkaas iyaguna macallimiin ka yihiin laakiin waan iska soo raacay markaan bundadii sidaa u soo korray ayaa inkastoo aan bundada hore u arkay haddana dee qof magaalada degan iyo qof kulleyba markaa yimi isku xiisa maahe waa yar hakadayoo xagga hoose xoolaha ka cabaya dad baa ka dhaansanayo marka iyagina way gudbeen oo dhinaca kale ku taallay soo istaageen anna cabbaar baan markaanu dhinacaa ka soo korray cabbaar baan iska yar daawaday xoolihii iyo dadkii iyo kuya maaragtay xaggii hoose weygii uu ka hoosay cabbaar marka saa u daawaday waan sidaan sidaa u ahaan baan dabeetay isdadbay waxaan sii dhaqaaq oo ilamadii ka dabatay daftinkii aan buundada ka joogay mooyaane dhinacii kale ayay gabadhi ka soo kortay boonkaas bridjka waa goor subaxa 9:10 gabadha timo dheer bay leedahay timuhu waa u furfuran yihiin xagga dambena cadceedii baa timaha ka haysa dabeedna istadabkii aan istadbay sida dhaqaaq waan dhaqaaqi kari waayay walaa halkay gabadhu ka soo kortay ilaa albaabkaas ay jirtay qiyaastii dabeedna waxaan sidii talow hal ama laba ma ku tiraahdaa gabadha iyo war gabdhaha Soomaaliyeed waa la iska yaqaan haday doonto markay ku caayaysaa aniga inta naftaydii baa murmaysa waxba ha ku odhan intii aan murankii intaan ishayeeyay gabadhii soo dhawaatay oo dabeedna inaan faduul meesha u taaganahay bay aragtay oo dabeedna waan eegay oo waan baqayaa anigu ma ogtahay dabeedna markaas arkay gabadhii oo yar muusoonaysa yar qoslaysa dabeedna waxaan war gabadhii mala waa mikir magaalo ku caay maysay iska yara faduuli ani faduusha keentay heesta uun baan doonayay inaan dabeedna haddaba afay garanaysaba ha ku faduulin laba eray oo carabiya ayaan maaragtay markaa ku yidhi waxaa subxaana man khalaqaki subxaana man khalaqaki yani waxaa nasahan ilaahay ku abuuray mogta ama kii ku abuuray ayaa nasahan yani waa eray ama carabtu eray carabiya wala subxaana marka wax lala yaabo waxaasay markaa dee kolley intaas garan mayse intaas gabadha kale subxaana man khalaqaki ayaa shayga cajiibka waxa uu ahaa inay gabadhii maaragtay ay jawaabta celisay carabiga ku celisay waxay tiri shukran bay tiri shukran marka taasay noqotay ta horta maaragtay ila sii daadigtay dabeedna ilaa bundadii baa dhex taagnahay gabadhii markay soo socotay meel ay iga dhaaftay jirtay iyana way istaagtay waxaan sidii gabadha adaa meesha taagay oo ilaa faduli afka la galay bal haddaba wuxuun ku dheh lawaa nacasinime marka kole waan arkaado xaggan aad ka timiye ma dhinaca aad ka timi baad degan tihiin mise dhinacaan aad u socoto si isku kalsooni leh raganimo leh aftahamo leh ayay gabadhii waxay tihi maya xagganaan ka imi baan la degannahay qofufka tale dadku kala buruud sarreeya xaqiiqa waxa weeye marka intaas markay dhacday aniga biyo qabow baa laygu shubay gabadhii iska daa hadal ku leedahay waan eegi kari waayey dabeedna mar dambaan iscanaataan idhi war heedhe sidana waa nacasnime markii aad laga soo bixi waabay tiri miyaad jeceshahay meesha aanu deganay inaan ku soo tuso waaba caynka cajiib si iska nacasnimo waan waxaan ku idhi haa oo runtii aan markaa waxba ku fadhiyin ujeeddo lahaynoo iska uun dheh iska dhehun way istadabtay waxay tihi inakeen mar baa dee had iyo goor wax aanad ku talagelin markaad la kulanto wash bay kaa tidhaahdaa moogta inantii baan sidii neef xoolahay wadato iska dabagalay buundadii baanu ka dhammaanay inamadii baanu sii dhaafnay geedkii bay hoos joogaan waxay u qaateen gabadha inaanu isgarannay maan odhan isuga iyo iska taga midoo dee waanigan ma joogo intaanu jidka sii soconay gabadhu saal bay weydiisay waxaad kolley magaalada ma tihidee xaggee baad ka timi waan u sheegay maya waa runtaa magaalada anigu maahiida xalaytaan soo galnay moqoladii caynkaas ahaydin ahaa oo adigu kumaa tahay bay igu tidhi magacayga wanaagsan baan u sheegay waxay igu tidhi garan maayo laakiin xasan sheekh muumed iyo haddii ilaahay ka dhigo salaad derbi iyo qoliha waan maqlay waan aqaan bay igu tidhi waxaan aniguna naanaystaas baan leeyahay waqtigaas waxay 1970 anigu markaa caanba maan ahayn
markii dambe naariis u sheegay naariistii bay garatay guri dayr weyn leh ayay hor keentay oo albaabka weyn marna la furay baabuurta ka gashale meel bay gacanta ka gelisay gudaha ka furtay soo galbay ugu tiri geed ku hor yaalla gurigay tiri halkan igu sug gurigii bay gashay kursi bay keentay ayay tiri kulley waxaa jira wax cajiib ah oo harkii galay buntadii dadkoo dhan marayay kugu kallifay inaad iskay hortaagtidee ma ii sheegi karaysaa waxaa kuu qasbay inaad halkii maaragtay iskay hortaagto waxaan ku idhi way jirtaa bal qabsoo baan idhi taariikhdayda iyo noloshayda waa markii ugu horraysay meel bannaan aan gabadhiis hortaaga baan ku idhi run baanay ahay ayaa jirta baan ku idhi laakiin imika kuu sheegi maaye markaan tago raadiyo muqdisho waxaan idhaahdo raadiyo muqdisho ka dhegayso waa yahay imisaad joogaysaan bay tidhi waxaan idhi barnaamijkaasaanu sidnaayo 2 habeen ayaanu joogaynaa dabeedna waan noqonaynaa waxay tihi malaa waqtigii qadada markay aragtay inaanay raganimo igu jirin malaa waqtigii qadada iska tago bal 2 habeen markaa barnaamijka dhigtaan haynoo ahaato waa cajiib talo maxay damacday waa yahay baan ku idhi waa iska dhaqaaqay anigu markan talada ma lihi go'aanna ma gaari karo wixii ay tidhaahduun baa jira moogtay socodku wayga xun yahay haddii ilaahay ka dhigo aad baan u kala daadsanahay mar uu iyaa ka hor kacana intaa hoos baan maaragtay waan tigu malaa qolad iyo qada doonatay meeshii aan ku soo degno maba qada doonay madaxiyo majaha dubo dhag baaban iska idho 5 iyo barkii baa la toosiyay caawa barnaamijkii baa jira dee toosoo haddii ilaahay u diyaar garow marka waxay riwaayad ku saabsan in Cabdillah Xasan iyo daraawiishta iyo dagaalkaas anigu in Cabdillah Xasan baan matilayay oo baashii madaxa gooy cadaay madaxa lagu duubanayay iyo kii jeeri qaarkii iyo seefo iyo daraawiishii la socotay iyo wax riwaayadan aniga Xasan Shamuumi baa wada sameynay geeraaradan aan akhriyayo anigu anaa sameeyay intaas oo habeen baanu baydhaba ka dhigayno habeen wada matilayay meeshii baan imid laga dhigayay riwaayada waxay silimo weyn oo ku yaala xamar waxa la beled weyn oo leeyahay Sheekh Ali Jimcaale silima Sheekh Ali Jimcaale dadkii baa soo buuxay dad waxa nin baa wata leeyahay Cali Dheere ninka la baxay taliya baas wuxuu koray meeshii buu korayo wuxuu yiri riwaayadaas bigisna magaceedu waa ka jidadaas ka hadlaysa ragaas baa alifay ragaa dadkaas jilaya ku soo dhawaada markuu inta dhameeyay isugu soo daadegay cidda bedelaysa koraysa meesha bilaabaysa riwaayada aniga ay ahayd anigoo xirtaydii wata ayaa markaa koray masraxii in Cabdillah Xasan man bedelay mikrofoonka ma saa soo taagay markaas ay soo taagay baan dee kulliba dadkan bahalaha riwaayada dhiga waa iska caadi markay meesha soo koraan indhaha waxay siiyaan dadka saasuun baan isha u mariya dadkiyo inantiyo kursiga ugu horeeya soo fadhidaan balad bageeraarkii 10 habeen akhriyaysa aad adigu aliftay balad bahel hirig qoladii daraawiishta la socotay hoostayga bujinaysa inta dahay hadal halka kii Cali Dheere iyo kooxda inteedii kale oo xaqii jooga baqsinka yaraada halka ay gala hadlayo maxaa kugu dhacay wad wallahi bay ka tahay waan soo qaban waayay markii dambe arkay inaanu baari baxay hadal iyo waxbaan isku jacburiyaan ka war hayno dabadeetana si degdeg ah meeshii uga soo daadego waa leeyahay maxaa kugu dhacay waan xanuunsanaya halkaasaan kursi ula baxo is weydiinaya wax igu dhacay baan ilaa hadda aanan garanayno wax ajiib maraba ka baashi dhaweyd baa sidaan isaga fadhiyay ay gabadhii ka soo kacday meeshii aan fadhiinay soo gashay oo gabdhaha nala socda ee iskuulka ka socda ayaa qaar reer beled weynayeen oo ay markay soo koreen masaxa karatay abar bay sheekaystay markii dambe ay tuwaatay hay Sayyid Maxamed Cabdillah Xasan iska war Sayyidku markii bislaas uu ka qaadan jiray macaankaas aad u saaraankaas oo mooy way habeenkii hore saasi ku dhamaatay waa tii bal marka 2 habeen ay baasho idin dhamaato hayno ahaato waxay dhamaasantahay warka ma hayo marka anigu 2 habeen baan ogahay habeenkii hore saasi ku dhamaatay habeenkii labaad showninkii meesha ka ahaa governorka barasaabka ka ahaa ayaa ninkii annaga madaxda noo ahaa u yimi oo wuxuu markaa 2 habeen dhigtaan habeen saddexaad annaga noogu tabaruca oo waxa ka soo baxa aanu sportska gobolka aanu hore ugu marino ku dhisno intaan noogu samafal noogu sameeyo shaway uu ka aqbalay habeenkii labaad baa la soo noqday
halkeedii bay ka bilaabatay masraxda soo koray mooyi mana daayo waa iska balwade sidoo ma dadku eegay laakiin marka habeenka gabadhu may fadhiyin si wanaagsan oo caqiibo loo raganimo leh baan ayaan qaybteedii u matilay tabadeedna baashii way dhamaatay markii intii ugu dambeysay lagu jiray baan anigu alaabteedii qaato dibadda u baxayo silimaha hortiisa ayaa kooxda inteedii kale isri ku sug ulba koorada waa sitay sida ugu tiirsanahay dadkii albaabka weyn buu ka soo baxay saas uu hormaray anigu waan baraad la ahay dabadeedna waxaan arkay dadkii soconayay 3 qof oo ka soo bayray waxa yar markay soo jireen bay laba istaagtay qofna hore u soo maray kaanimi waa gabadhii iska waran bay tiri waa nabad soo caawa hawsha idin kagama ekayn bay tiri may waxa idhi gobolka naga codsaday inaan habeen dambena dhigno oo wixii ka soo baxaan iyaga ugu deeqno waxaan idhi beledweyne leyrkiisa waxaa la baqtin jiray 12 habeenimo markaa ruuc bay laadahay waxaan idhi dee bal kule waqti dambe aan ilaa ku sii dhaweeyo gabadhii baan israacnay inta ilaa hadlaysba gabadhii kale yahay heblaayo jaawo iyagii way iska tageen aniga gabadhii bay isku soo hadhnay waxaan ku sii dhaweeyeen wadi waan ka markaan buundada markaan webiga qarkiisii tagnay halkii buundada laga korayay ayaa leyrkii la baqtiyay waxay tiri magaalada ka aqaano buundada ka gudbayay adigu hadhow ma soo gudbi kartid iska noqo diman hadda habeen dambe aan maaragtay barnaamijkaasi jiro habeen dambe horta ku darsada showintii aan gabadha sii kaxeeyay baa ninkii barasaabka ku soo noqday ninkii madaxda ahaa wuxuu ku yiri waayo waxa yar cabanayay qolada music tumaysay militariga marka uu ku soo noqday wuxuu yiri habeenkii aan idin weydiisanay waanu ka noqonay fasax baad inay iska taga anna gabadhii waxaan kaga yimi habeen dambe ayaa barnaamijkii dabeetana waxaan meeshii oo la iska seexday ana waan iska seexdo shantii barkii baan qaylo iyo buuq maqlaya waan hurdaa waxaas waa triyoonaysaa haddaba waqti mala nus saac ka bacdi baan indhaha kala qaaday mise baabuurkii weynaa aanu wadanayba waxa la soo geliyay gudaha waa la raraya saasaan u soo toosay cidna lama hadinay waan iska sii jiibsaday dabeedna waa la kiciyay waa la tegayaa toos baa lagu yiri xagee la tegayaa waa la baxaya meena caawa baashi meena jir watii leena fasaxay waxa kale ma sameeyay marka alaabta sitay iyo hawl kale ma galnay qasabad halkan ayaan intaan wajiga mariyay biyo ayaan ka baxay meeshii oo makhaayad ka soo horjeeday meesha kuraasi dibadda taalaan mid ku fadhiistayo shaaban isaga yeedhay dadku ku shay hor yaala baabuurkii oo la soo raray soo dhaqaaqayo makhaayadii hor yimo waa laga soo digayo dadkii quraac iyo shaabi fadhiisteen kii madaxda ahaa soo fadhiistay cali dheera la yiraahdaa waxaan idhi warwaan xanuunsanayaa kulaba in badan bay maxamed ka sokonay hadaynu caawa iska joogno oo aynu barita tagno ka war way gabadhii ayaan darada joogtaa waxa weeye gabadhii oo aanu ku kala nimi waanu joognaa caawa koow iyo iyadoo saacadani saacad la sii mari karo oo la oran karo dee waanu tagnay nabadgelyo aanay ahayn kiiba markaa idhi waan xanuunsanayaa ma socon kare aynu caawa iska joogno wuxuu nimankan militariga ayaa dilay ka dhaw degdegsan oo diidano waan iska tagaynaa ka baabuurku sariir buu leeyahay shirka taa iskaga jiifso waan iska tawakkalayna waan keenay raja jirin lagu joogaa marka dadkii intii quraan waan iska socday baabuurkii baan korayo baabuurka dhexdiisa waxa labadiisa dhinac kuraasi baa sidaa u safan dhexdana furshaan baa taala oo maalintii ama habeenkii marka baabuurku nala socdo qofkii doonayana furshaantaas ku seexanaya haddii aad doonaysaa kursigaas waxaad ka daawanaysaa dhulka marka inta baabuurka koray baan furaash iskaga seexday saan u jiifay ayaan arkayaa niyadan ka daawanaya waa la soo korayaa waa la fadhiistay waa ka buuqa qeyr dabeedna baabuurka la istaaray markii lagu rogay ee uu guuxay baan furaashkii ka soo kacayo kuraasidii baan ku soo fadhiistay dabeetana sidaan u arkay buu dhaqaaqay wuu socday beledweyne qofkii arkay wuxuu socdaa marka wadadii dheerayd ayuu ku dhacay kursigii baan ku fadhiyay wali magaaladii baan sii eegayaa marba marka waa adiga arkay marba way sii turkaysaa way sii yaraanaysaa adigu markii ugu dambeysay maaragtay ayaa sawirkii lumay dabeetana furaashkii baan iskaga noqday halkii baan iska jiifsaday dabadeedna waxaa la toosiyey buulo burte iyadoo baabuurkii taagan yahay mala qoladii buulo burta baabuurka is hortaagtay oo tirina dhaafi maysaan caawa noo dhiga ma horta intaanaan buulo burte gaadhin tuulo leeyada koronto uunu ayaan hurdadii aan galay waxaan ku riyooday anigoo weli beledweyne jooga oo dee meel iska barwaaqa oo gabadhii haddii ilaahay ka dhigo aan gabadhii la joogo adigu sheeko caynkaas oo markaan toosay ayaa la kabistay koronto uunaanu maraynaa hurdadii baan ku noqday dabeedna waxaa ii xigtay buulo burte baabuurkii la hortaagay la leeyahayna dhaafi maysaan halkii baanu habeenkii joognay subaxdii baanu ka baxnay 12 maalinimaanu xamar gallay gurigii baan tago waan seexday 6 fiidkii baan toosay
magaalada jaad u doontay waxaan haddaba dee la gabadhii sida ku wada timaatay waad ogeydeen dee waad ogeyd sida ku wada timaateen balaatan ballankii fuli dabeedna habeenkii baan u fadhiistay qalinkii waraqda waxaan kala qaaday iftiinadii iga soo galay daaqada lixdii subaxnimo dabeedna markaasaan ka kacay sidaan 6 7 qiyaastii meelaha u fadhiistay